magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Barakeysan. Daawadayaal, dhegeystayaal, waa mar kale iyo saamka barakeysan ee David qaybta koowaad. Waxaan idiin soo diyaariyey qaybo ka mid ah qaybta koowaad, Saamka David, diintayda dabiiciga ah. Qaybta koowaad iyo qaybta labaad labadaba waa idaacaya. Way ila saxsanaatay inaan idiin soo diyaariyo YouTube idiin soo dhigo boqolkiiba 84 boqolkiiba ila saxsanaatay ila qumanaatay inaan idiin soo diyaariyo isna YouTube idiin soo dhigo. Fadlan daawada u yeerta Rabbi xaalad walba ku sugantihiin. Okay, baptism iyo caawimaadtiini labadaba way idiin noqonaysaa. Aan bilaabno maanta qaybaha aan idiin soo diyaariyey. Psalm 5. Psalmka 5aad wuxuu ku furfuranayaa erayadan ducada ah. Aayadda 1 leh: Fadlan Rabbiyow i maqal markaan tukanayo. Fadlan dhegeyso taahiga. Fadlan dhegeyso ooyintayda. Caawimaad. Fadlan dhegeyso ooyinta caawimaad. Boqorkayga iyo Ilaahayga, idinka mooye cid kale ma baryo. Fadlan dhegeyso codkayga. Subaxdii Rabbiyow, subaxii waxaan kuu keenayaa codsiyadayda, si rajo ahna waan u sugayaa. Ilaahow, xumaanta kuma faraxdid, dembiyada kuwa sharka lehna ma u dulqaadan kartid. Sidaa darteed, kuwa kibirka leh hortaada ma istaagi karaan, waayo waxaad neceb tahay kuwa sharka sameeya oo dhan. Waxaad baabi'in doontaa kuwa beenta sheega. Rabbigu wuu karaahiyeysaa gacan-ku-dhiiglaha iyo qaa'inada. Halkani Nebi David wuxuu inoo sheegayaa in inkastoo midkeen kasta oo naga mid ah uu yahay dambiile, haddana waa dambiilayaasha kibirka leh oo keliya oo aan ka badbaadi doonin maalinta xukunka. Aayadda 5: Kuwa khushuuca Ilaahay hortiisa, asigana ka dambeeya, ayagoo ku maran cabsi iyo xushmad, waxay dhaxli doonaan barakooyinkiisa. Kuwa sharka leh waa kuwa qalbigooda kibirka leh oo ku dhaqma khiyaano iyo dil. Jisus wuxuu qaaday tallaabo hor leh oo wuxuu yidhi in dhammaan kuwa nacaybka u qaba qof kale ay horay u geysteen dil Ilaah hortiisa, oo aysan heli doonin cafiska Ilaah maalinta qiyaame haddii aysan hadda toobad keenin. Jacaylkaaga aan dhammaadka lahayn awgiis, aniga waan geli karaa gurigaaga. Waxaan ku cibaadaysan doonaa xaramkaaga, aniga oo si qoto dheer abaal u hayo. Fadlan Rabbiyow, igu hoggaami jidka toosan, haddii kale cadaawayaashayda way iga adkaan doonaan. Fadlan jidkaaga ii fududee si aan u raaco. Saamka barakeysan ee David. Halkani waxaa naloogu barayaa in qof kasta oo adduunka jooga oo doonaya in uu u dhowaado Rabbiga Ilaah qaadirka ah uu yimaado meesha cibaadada, isagoo ilaalinaya ama lagu ilaalinayo naxariista iyo jacaylka Ilaah. Dadka noocaas ah way iman doonaan oo waxay
caabudi doonaan Ilaah iyaga oo si qoto dheer abaal waayo oo u hoggaansamaya isaga, sababtoo ah wuu istaahilaa cibaadadaas oo kale, iyo sababtoo ah dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan caabudno Ilaah si aan u awoodno inaan ku noolaano waxa ugu fiican nolosha gaaban ee dhulka. Nebi Isaiah wuxuu baray sida tan ay suurtagal u tahay naxariista Ilaah ee ina siiyay Kiristiga gaarka ah. Psalm-ka wuxuu ku dhammaaday erayadan: Fadlan laakiin kuwa kugu magan gala oo dhan ha farxeen. Fadlan laakiin kuwa kugu magan gala oo dhan ha farxeen. Ha ku ammaanin weligood ammaanta. Fadlan ilaaladaada u fidi iyaga. In kuwa magacaaga jecel oo dhan farxad lagu buuxiyo, waayo waxaad barakaysaa kuwa xaqa ah. Rabbiyow, waxaad ku wareejisaa ayaga gaashaankaaga jacaylka. Nashiido Sama. Ilaahayow, xumaanta kuma raali tihid, carabka xunxun ayaad neceb tahay. Fadlan ii hoggaami Rabbiyow jidka xaqa ah. Fadlan jidkayga hagaaji. Maalmahayga oo dhan duco. Fadlan ii hanuuni Rabbiyow. Psalm 6. Psalm-kan gaaban wuxuu ina xasuusinayaa in Ilaah maqli doono oo uu jawaabi doono xitaa marka aan xanuunsanno oo aan aad u liidano. Markuu David ahaa mid jir ahaan xanuunsan, cabsi iyo murugo ka buuxdo, farxaddiisa uu ku qabay Ilaah way yaraatay si ku-meel gaar ah, laakiin wuxuu ku martiqaaday Ilaah inuu yimaado oo uu bogsiiyo. Rabbiyow, ha igu canaanan cadhadaada ama ha igu edbin xanaaqaaga. Rabbiyow, ii naxariiso, waayo waan tabar daranahay. Rabbiyow, ii bogsii, waayo lafahayga way xanuun badan yihiin, wadnaha ayaan ka xanuunsanayaa. Ilaa goormaad, Rabbiyow, ilaa aad i soo celiso? Wuxuu la dooday Ilaah. Fadlan Rabbiyow, soo noqo oo i badbaadi. Fadlan i badbaadi jacaylkaaga aan dhammaadka lahayn aawadeed, waayo kuwii dhintay kuma xasuustaan. Yaa ka ammaani kara qabriga? Waan ka daalay oohinta habeenkii oo dhan. Sariirtayda waxaan ku shubay oohin anigoo ilmada ku qoynaya. David wuxuu rumaysnaa in Ilaah
David wuxuu rumaysnaa in Ilaah uu ka jawaabay ducadiisa inkastoo uu dhibaataysan yahay. Nashiido Sam ah waan ku aaminsanahay. Fadlan naxariiso Rabbi, fadlan jirkeyga iyo maskaxdayda bogsii. Waan bogsaday, ammaantaadana waan ku sii doonaa. Waxaan ku kalsoonahay in naxariis ahaan doontid. Duco: Fadlan i caawi inaan jidkaaga ku socdo Ilaah. Saamiyada aan idin soo diyaariyey maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Waa ku mahadsantihiin daawashada. Fadlan rukunsada channel-ka, subscribe idinkoo dhacay, like saare. Tan iyo kulanti dambe, nabadey.